بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا مدنها لك صدرتي بريغ مانديرا عمر محمد معلم وعن سلامة رير مانديرا قازهان رير مانديرا إيست إسلام كونول ومدو كل كونول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa dhici doona insha Allah taala oo hadda la isu diyaarinaya xisaabin ama waxa loo yaqaan census oo bilaabin doonta taariikh 24 bisha soo socoto oo ku eg taariikhda markay tahay 31 xisaabtaas maalmahaas ay socon doontaa. waxaan ka codsanayaa bulshada ku nool Mandera East meel kasta oo joogtaan insha Allah taala inaad ka qayb qaadataan xisaabtaas ka qayb qaadataan la xisaabiyo waayo xisaabtaas waxay ku salaysan tahay in mashruuc kasta oo laga fulinayo gobolkan in ay u ahaato budiga ay u ahaato xisaabtaas ayaan rajaynaa dawladda ka shaqeynaysa marka reer Mandera ama county ahaanba waxaan idinka codsanaynaa insha Allah taala inay xisaabtaas aad ka qayb qaadataan. hadda waxaa la sameynayaa interview ama recruitment dadkii karaaniyaalkii dadka qori lahaayeen si fiican ay u socotaa shalay ilaa maanta ilaa daraad waan tagay xafiiska Kenya National Bureau of Statistics sida nidaamka si fiican isku socotaa marka anaga ayaan loo baahan yahay inaan ka qayb galno. dadka waa reer guuraa waayo waqtigan abaara iska jiro oo insha Allah taala aad loo guurahayo waxaan idinka codsanayaa maalmahaas asbuucaas in aad ka soo qayb gashaan xisaabtooda ka soo qabshanayaan idinka codsanaynaa. waa tahay dad badan waxay jiraan ama Ethiopia ha jireen ama Nairobi ama Kenya gudaheeda ama Soomaaliya dad badan hay'adaha u shaqeeya jiro oo reer Mandera ah dadkaas iyagu maxaad baaqo u dirleed maadaama aan laga maarmin sida hadda aad sheegayso. wallahi reer Mandera meel kasta joogtaanba Mareykan iyo Ingiriis iyo Arab meel aad jirtaan waxaan idinka codsanayaa insha Allah inaad imaadaan Nairobi naftigeeda dad badan oo reer Mandera ay joogo walaalayaal waxaan idinka codsanayaa insha Allah taala in waqtigiina iyo qiimaha la aad qurtaan oo weegaas asbuucaad aad imaadaan oo iska diiwaan gelisaan meeshaan aan idinka codsanayaa insha Allah taala. dadka reer guuraaga hadda Soomaaliya aad ay u gudbeen dhanka Ethiopia ay u gudbeen inaad soo noqotaan waqtigaas asbuucaas oo xisaabisaan ayaan idinka codsanayaa insha Allah. xisaabtan maxaa muhiimad ah ay u leedahay shacabka reer Mandera ama gabi ahaanba waqooyi bari Kenya? awalan muhiimadda ay leedahay waxa weeye dhaqaalaha imaada gobolkan ayay lagu saleyn doonaa meeqa populationka ama cadadda dadka dhan yahay imisa ayaa dhaqaalaha lagu bixin doonaa dhulkan soo gaaraya. teeda kale ayaan hore waad ogtahaan huduma number iyo waxyaalaha la sheegay in la ogaada meeqa qof oo ku nool ama meeqa dad oo ku nool gobolkan ay dawladda ogaan rabtaa marka anagoo meesha ku nool in ay noqoto ma ahan in meesha nagala waayo marka dadka meesha ku nool kulli ama meeshaan u dhashay waa inaan meeshaan kusoo laabano sidii dadka Nairobi jooga dad badan oo reer Mandera ama reer Mandera East Nairobi joogo isliib buuxo waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal insha Allah inaad halka kusoo laabataan asbuucaas waqtigiin iyo dhaqaalihiina kulli aad ku imaadaan sidii aan uga qayb galnaa xisaabtaas insha Allah taala.